السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا رح أقرأ لما قرأت إن شاء الله سيارتي أيوة جسته أما أيوة عشته حسد الواحد وهران دونتا رنتي كلاس سيانا قيبها السوق أيوة وهران دونتا وأنا متلقى اللي رنتي أيوة الرئيسون سير الشغل كورس كينو لو قيبوا يا رنتي قيب سيهاي وعشرة ريكوردنا يسومس السوق أي جريمة معناه رنتي تبغى نحاول نقول أنا مهمة الكورات waxaynu ku saari doonaa runtii waxa loo yaqaano Allah musta'aanay in ardaydu casharka ay dhageysato ee recording-ka ah aynu ku sameeyno wixii su'aal ka soo noqon insha Allah aynu ku dul istaagno sidoo kale aynu maxay hayday casharada practical-ka ku qaadano marka hadda aynu dhigano candlestick psychology-ga iyo market structure-ka iyo stroke analysis iyo waxa markay runtii isku xidhno aynu insha Allah u gudbi doono ee runtii ka ku saari doonaa that's why baa muhiimada suuq u leedahay laakiin suuq inta badan ma noqon doonto meel casharo cusub ay ku qaadano ama se course cashar aydan dhigan ay ku qaadano sababtoo ah arday wuxuu u baahan yahay casharka inuu mar iyo laba iyo saddex ku ceshado si uu u fahmo insha Allah okay haddaan hal mar ku noqdo halkan okay runtii casharada horta waxaan u talagalnay halkan soo gelaya waxa ay yihiin casharadeenna recording-ka ay insha Allah soo geli doona lakab ay runtii soo geli doonaan ama qayb ay soo geli doonaan oo marka aynu market structure-ka soo gelino ay market structure-ka isla fahmo strong level-iska casharada kale soo geli doona kadib candlestick psychology-ga soo geli doona kadib casharada kale ee waxyaabaha kale kale soo geli doona sida trade link iyo wixii lamida ayaa runtii saas noqon doonta marka aynu hadda fahno market structure-ku waxa uu yahay ay u gudbi doonaa qaybta kale laakiin hadda haddii wixii la iska noqdaan wax iska socda oo arday hal mar uu wada daawado inta halkan ka bilaabo ka wada dhex baxo hal week ama laba cisho saddex cisho afar cisho inkastoo kuma dhamayn karin laakiin haddana hadduu dedejiyo ka dhex baxo macna u samayn maayo runtii wax faa'iido uu ka dheefaya ma jirto cashar kasta marka aad dhageysatid ee waqti ku filan aad siisid ee practical garaysid ee saxid ee runtii fahmaysaa that's why sabab weyn runtii course-keena waxaan insha Allah hal mar dul mari doonaa waxa loo yaqaano qaybahaas aynu recording-ka kaga soo hadalnay kadib insha Allah waxaynu u gudbi doonaa dhanka su'aalaha ama wixii su'aal kaga soo noqdo insha Allah inaynu saxno si casharadeena kale aynu u gudbino casharadeena kale waxay u gudbi kareynaa kan wixii su'aal ka soo noqdo markaynu ka jawaabno insha Allah okay market structure-ka runtii ku soo dhageystaan casharada market structure-ka waxaynu ka soo hadalnay noocyada trendiga up trend iyo down trend walba rules u baahan yahay waxaynu ka soo hadalnay waxa loo yaqaano Allah musta'aan branching market-ka waxaynu ka soo hadalnay waxa loo yaqaano good market iyo bad market waxaynu ka soo hadalnay minor trend iyo major trend waxyaabahaas oo dhan waxa la doonayaa inaad fahansan tahay oo ay ku dhaadhacsan tahay oo qodob mid kasta aad sharxi karayso oo aad adigu dhigi karayso intii laga doonaya haddii aanad fahansanayna ku noqo casharada recording-ka oo iyaga runtii soo daabo mar iyo laba iyo saddex iyo afarba iyaga runtii ku soo celi si ay kaaga dhaadhacdo waayo muhiimadda ugu weyn runtii waxa weeyaan waxa aad fahansan tahay ayuu baa runtii waa dad maanta 500 cashar dhageysato waxa kaaga fiican 3 cashar 4 cashar oo aad fahantay ayaa runtii ka xaasila okay market structure maxaa tahay market structure-ku basically waa qaab dhismeedka uu u dhismayo suuqana ama 1 minute joog ama 1 hour joog ama another temperature time-ka dunta joog 1 hour waa structure-ka runtii uu u dhismi doono suuqani uu u dhismi doono ayaa runtii basic noqonaya muhiimadda uu hadda inoo leeyahay markaa maxay tahay muhiimadda uu hadda inoo leeyahay ama aynu u qaadanayna waxa weeyaan waxa hadhow marka aynu trade garaynayno ee aynu trade gelayno ama se trade buy gelayno tusaale ahaan hadda waxaan doonayaa inaan trade suuqa buy gareeyo oo halkaa ka buy gareeyo before aanan halkan fiirin oo aanan odhan suuqan okay before aanan suuqan buy gareeyo oo aanan odhan suuqan baan buy gareynaya oo halkan baan ka gelaya aanan odhan waa inaan directional kii suuqa eega markaan suuqa direction kiisii eego maxay u dhigaya inaan ruleski kala eego laakiin ka waran haddii markaan suuqa soo galaba aan daydayo tusaale ahaan haddaan lacag soo qabsado aan chip USD soo qabsado wax rule ba aan eegin ba haddaan idhaahdo continuation ka dalban arkaa dadna sell iska lufto maxaa ay noqonaysaa waxay noqon karaysaa inaan loss gareeyo inaan loss gareeyo maxaa ka horeeya inaad tidhahdid kan dalkani waa continuation kan dal waxa ka horeeya
inaad xaaladda ama situationka uu suuqu ku jiro horta adeegsa suuqani muxuu ku jiraa ma uptrend ba mise waa downtrend kow sidoo kale inaad isweydiisay waxa loo yaqaano maxaa meesha ka socda suuqani ma good market ba ma bad market ba maxaa meesha ka socda marxaladaas marka aad isweydiisay waxa kuu fududaanaysa runtii inaad ka gudubtid qodobadan ku hor yaalaan caqabadaha ku hor imanaya oo dhan inaad runtii ka gudubtid okay marka marka structure runtii sida uu dhismana waa ka hadalnay oo casharadina ku koobi kama ka hadalnay iyo ruuska uu baahan yahay haddii aad uptrend ama suuq aad leedahay waa uptrend waxay niri laba rule xaqiiji labada rule xaqiijiyay maxay yihiin kow suuqani suuqii ka horeeyay ee downtrend ka ahaa ee uu soo burburiyay horta soo hel tusaalahaan suuqii downtrend ka ahaan jiray ee halka mari jiray marka aad soo hesho maxaa la doonayaa waa inaad heshaa dhaqaaqii burburiyay dhaqaaqii burburiyay waa inaad heshaa tusaalahaan hadda kanoo kale u fiirso impulsive wuxuu jiriyay dhaqaaqii downtrend ka ee ka horeeyay burburiyay maadaama uu burburiyay dhaqaaqii downtrend ka ee ka horeeyay kow waa rulkii kood rulka labaadna waxaynu ku sheegnay waa inuu samaysanayo isagoo higher high iyo higher low iyo higher low waa inuu samaysanayo oo uu sameynayo wax loo yaqaano impulsive correction kadibna impulsive kadibna correction kadibna impulsive uu saasoo kale macnaha kor u soconayo labada rul haddaad hesho uptrend waad haysaa okay downtrendna maxaa lagaa doonayaa downtrendna waxaa lagaa doonayaa marka hore inaad soo hesho suuqii bayga ahaa ee meesha maray ee lasoo burburiyey last lower high meesha laga soo saaray waa inaad soo hesho marka isaga soo hesho maxaad leedahay downtrend ka iyo rulkii wada hayaa kala labaadna waxa weeye uu isagu sameynayo kala hooseyn ama lower lagu waxa loo yaqaano inuu ku jiisa taasa u sameynayo labada rul hadaad hesho skip hadda tusaalahaan suuqan u fiirso hadda suuqan u fiirso suuqani marxalad ayuu ku jiray intan oo dhan muxuu ahaa kasoo bilow runtii halkan halkaa kasoo bilowna halkan kasoo bilow suuq kastoo tagtaana runtii waa sida hadda halkan ka bilow halkan muxuu ka sameeyey impulsive ka sameeyey soo maaha impulsive-ka uu ka sameeyey maxaa ku xigay impulsive correction impulsive correction impulsive correction impulsive ka xigay good maadaama suuqaasi sidaas sameeyay waa uptrend bay soo maaha uptrendkaas hadda waa higher highs laakiin maxaa ka maqan suuqan waa inaad hesho downtrendkii ka horeeyay ee uu meesha ka saaray aynu fiirino dib u baxno dad san soo yareeyaan naftu u baxo maxaa ka horeeyay suuqaas suuq baa ka horeeyay oo kana impulsive correction waxaa lagu runtii impulsive correction kana dhan impulsive kiisi waa kan correction baa laga doonay kadibna impulsive inuu sameeyo ayaa laga doonay laakiin ma sameeyo wuxuu sameeyey impulsive wuxuu meesha ka saaray last lower high that's we will uptrend kaas u bilowday dii lagu weydiiyo oo lagu dhaho war uptrend kani waa in ay amaal ku ka yihiin wayna qeexi karaysaa okay hadda u fiirso okay hadda u fiirso hadda suuqan u fiirso hadda suuqan soo downtrend ma suuqan dheer downtrendki iska muu samaysmin dee macna basically rule book samaysmin rulkiisu waa kana impulsive kiisi waa kan correction kiisi waa kan impulsive kiisi waa kan correction kiisi waa kan impulsive kiisi yara waa kan correction baa laga doonay kadibna impulsive baa laga doonay ma sameeyay ku sameeyay compulsive there oo wuxuu meesha ka saaray lower high waa burburi maadaama burburi maxaa bilaabmaya downtrend correction case because hadda correction kani ugu halkan uu jimid yahay halka jimid lahaa suuq uptrend ku soo socon la muu jimid muu jimid dad soo halkan sel wada soo qaadan karaysa correction key impulsive key correction key waxaan dhahaa waa correction sababtoo ah marka uu ka hoos mara kan hoos ay baa waxa xaqsanaysa lower impulsive waa kan correction waa kan impulsive waa kan iyo correction waa kan impulsive waa kan correction waa kan impulsive waa kan iyo correction waa kan good sidaas u wadaysaa illa iyaalka u hooseysa politiga u fiirso hadda u fiirso impulsive correction impulsive correction impulsive correction year impulsive year correction impulsive okay good inta hadda markaan xaqiijiyay maxaan leeyahay suuqu waxa uu burburiyay last low highs wuxuu burburiyay halkan burburiyay maadaama bartaa jebiyay maxaa bilowday new uptrend impulsive correction kaas hadda kaas is not the correction kaas markuu meelaha yimaado maxaa bilaabmaya impulsive yep sida laga doonay inaad u xaqiijiso waxa loo yaqaan trending waa taas waayo waxay yimid suuqa aad trade gareynayso waa inaad hurti directionkiisa wuxuu yaabo badan uu ka caawinay hadii marka trade la saaranayso waxa kamid ah trade la suuqa la saaranay waa cayiman yahay oo jeedis aad garanayso
marka impulsive ama correction ama meesha ka trade garanayso waa inay ku caddahay oo aad garanayso okay waa ka gudbaya suuqa maadaama casharada coding ay duwan yihiin oo arday kasta laga doonayo runtii inuu fahansan yahay ama se garanayo waxa loo yaqaano qodobkaas aan ka hadlayo haddii aan please fahansaneyn ku noqo casharadeenna recordingka mar iyo laba iyo saddex soo celceli wixii su'aala ay aad fahmi weydo inuu joognaa inaynu ka jawaabno sababtoo ah sababta aynu suuqa u qabanay qodobka labaad aan ka hadli doonaa runtii waa ranging market ranging marketku isagu ma aha suuq jahali isagu waa suuq macnaa meel ku noqonaya waa sideways market okay waa sideways market sidee ayuu samaysmayaa waxa uu samaysmayaa sida tan oo kale impulsive ku samaynayaa haddana kii mid leeg ku soo noqonaya haddana mid kale uu samaynayaa haddana mid kale ku soo noqonaya haddana mid kale uu samaynayaa haddana mid kale ku soo noqonaya okay good ogowna inta dhexe ee suuqu waa samayn karaya impulsive correction halkan dhexe waa noqon karaysa muhiimaddu waxa weeyaan inuu dusha ka sameeyaan ama hoosta ka sameeyaan okay inta lagaaga baahan waa intaas qodob kalena iska ilaali haddii macnaa aad doonayso ranging market waajib maaha inuu suuqu sidan noqdo waajib maaha inuu sidaas ku leekaado oo dushana iska leekaado hoostana iska leekaado waajib maaha wuxuu samayn karayaa inuu dusha iska leekaado oo sano kale ka noqdo dusha oo dusha iska leeyahay laakiin hoos ka kala dheeryahay inuu hoos ka kala dheeryahay oo macnaa hoos uu ka samaynayo low laakiin dusha uu ka sameeyahay okay isagana example-kiisa aynu soo helno okay suuqana hadda maxaad arkaysaa markaan saa usoo ballaariyo in here waxaa ku jira halkan oo kale sideways ayaa runta ku jira in here waxaad arkaysaa suuqaasi marxaladaas sare ama dushaa sare inuu ku sameynayo wax loo yaqaano sideways macnaa waa ka sameeyay hadhow toole marka aynu trade garayno meelaha aynu ka trade garayn doono ayay ka mid noqon doonta laakiin maxaa ka horeeya waxaa ka horeeya inaad fahamsan tahay sidee ayuu dhismaa sideways hadda suuqan badankiisu waa maxay waa trendy maalmaha OTC-ga suuq muxuu sameeyaa waxa uu caadi ahaanta sameeyaa waxa loo yaqaano trendy ayuu badan yahay suuqu inuu sameeyo okay halkan hoosoo kale isma bariya okay dushana kale hadda waxaad arkaysaa halkan u fiirso basically halkan kale maxaa sameeyaa sideways like waa kooban tahay basically waxa lagaaga baahan yahay inuu suuqu dusha ka sameeyahay hoostana ka sameeyahay haddaad intaa hesho waad haysataa waxa loo yaqaano sideways ama suuqi sideways aha waad haysataa khasabna maaha inaad markaad isaga heshaad trade garayso ee waxa waajiba inaad confirmation-kii aad ku gelayso trade-ka aad hesho hadda suuqan kale u fiirso halkan waa ka kacay halkanna waa ka kacay halkan marka waa ka kacay halkanna waa ka kacay halkan laftarkeeda marka uu yimina waa ka falceliyay laakiin muhiimadeedu waxa weeyaan inaad xaqiijiso waxa loo yaqaano sideways oo ah suuq siman معنا رنجي كجرا أما سمر حرد رنجينا كجرا أوكي وكجود بيقظة كانوا كنتي وحلو جود بدونا إن شاء الله قد بسنة مهمة ومركز سوق استركتر كيس أي واجب طيب هذا وحل يصير لجالنا وحلو جود بدونا قد بدنا كاي إن شاء الله كورس كنا قيس نوين نظام يا ما إن شاء الله يسلمنا إن شاء الله نبدأ بدونا يا هذا الله يقانو الله المستعان كمبيوتر سايكولوجي كونفورميشن سترونج ليفلز وحيابها انتينا جري horta waa inuu ka gudubnaa caqabada structure-ka runtii suuqa markaad trade garaynayso waxa loo baahan yahay inaad xaqiijiso ama ay ku caddahay suuqana trade garaynaysaa ma bull market ba mise waa bear market waa su'aal la doonayo marka aad suuqa soo gelaysid inaad isweydiiso tusaale hadda lacag baan soo furtay NCD USD baan soo furtay okay saasana soo furtay waa soo baxday 5 seconds ka bedelo 1 minute baan ka dhiganaya insha Allah okay 1 minute marka ka dhigo suuqa saa ka dhigmayo waayo ta saa ilaada maxaa sameeyaa the consolidation loo fahmay suuqa soo yahay tan ugu jeedo inuu kor u soo markayo maxaa loo baahan yahay inaan saa soo cadeeyo marka saa u cadeeyo suuqan waa inaan qeexi karaa marxaladan ku jiro ma bull market ba oo waan trade garan karaa anigoo leh suuqani baatal uu sameeyo waan si raacaya mise suuqani waa bear market oo layma ogola inaan trade garayo السؤال اسمه ترى محل يعني هي سوق حبي على هي bear market تري نسبة كثير من دونتا حبي أتكشف سوق bear market ما ترى جرينيس هذا اللي هو bull market لا نسبة كثير من دونتا سجنا واحد لا هو ترى جرينيا وأنا سوق اللي بهنا إن ترى جرينيا أوكي محل هذا لكم إذا سوق واحد لا يخانو سوق bear market هي محل جرينيا محل يبدأ هي أرض كستان شاشة فانسينها أي رقاي مدام أرض كست 10 كربون كابسول كيست كاس هذا هو طول مرة هذا ما دقيقة 10 ما دقيقة
saddex rule waxaynu soo sheegnay kow in laga baahan yahay waxa loo yaqaano suuqaas haddii uu sameynayo waxa loo yaqaano candlestick loo yaqaano spinning top ama spinning bottom oo like dojiska u samaysan oo ku soo noqnoqonaya suuqa oo badan haddaad aragto suuqaasi waa bear market waxaan niri haddii calaamadda aad ku aragto suuqa waxaa aqoonsanaysaa inuu yahay bear market sidoo kale haddii aad aragto ama uu suuqaasi kaa noqdo waxa loo yaqaano rejections ama weeks fara badan oo dhaadheer oo marxaladaha newsiska inta badan iyadana samaysanta isna waa bear market saddex haddii sidoo kale aad aragto waxa loo yaqaano inuu suuqaasi sameynayo consolidation oo candlestick consolidation sameynaya isagana waxaad leedahay waa bear market okay su'aal ahaan hadda aynu fiirino like this candlestick aynu ka hadlayno ee spinning top and spinning bottom iska ah waa kuwan u fiirsantii candlestick haddii aad aragto iyadoo san u sameysmayaan oo welibana suuqan hadda already all suuq direction ay ka jireen laakiin haddii san u soo noqnoqdaan oo isku xigxigsadaan weliba suuqaas ma trade garin karto because candlestickasi waxa ay sheegaan suuqa inuusan volatility fiican lahayn oo uu bear market yahay okay meel kale inta fiirin hadda ku fiirso hadda marxaladda halkan ka jirto kale marxaladda trade garin karayay ma ahay marxalad la trade garin karayay ma aysan ahayn okay haddii saas oo kale suuqaas yahay loogama ogola intii la trade garin dadka qaar waxay yiraahdaan suuqa xitaa hadduu bear market yahay nidaamkaaga hadduu saxan yahay waa shaqeey waxba kama jiraan reality marka laga hadlayo waayo waxa marka tijaabisay ayaad ogaan karaysaa maanta anigu waxaan ku leeyahay waxaad ogaan karaysaa inay sax yihiin inay qalad yihiin markaad adigu tijaabiso okay waana adigana leeyahay waxaad ku tijaabiso oo wax kasta aad gacantaada la tagto okay aynu fiirino ku fiirsantii marar badan bay runtii soo noqonayaan adiga laakiin laga baahan yahay inaad soo baadho oo aad meel kasta ka soo saarto marxaladda uu suuqa ku jiro bear market si aanad ugu kadsoomin marxaladda kale ee sidii runtii aynu sheegnay waa suuqa loo yaqaano consolidation waa maxay consolidation kuwa markuu suuqu sameynayo red green isweydaar ay runtii sameynayaan sidoo kale ayuu sameynayaa there is no direction wax direction runtii ma laha isku same area markastoo mid la sameeyaba kini leg baa dib loo soo celiyo marxaladdaas kale haddaad aragtana suuqa isna ma trade garin kartid oo waxaad leedahay suuqaasi waxa uu sameynayaa consolidation kuna waa calaamad kamid ah calaamadaha suuqa bear marketka isagana waa inaad iska ilaalisaa oo aan ku digdin hadda kan kale red green hadana three greens there is no masaadaalin karaysa laakiin haddii ay tani direction leedahay marxaladdan kale waa trade garin karaysaa oo iyada bottom marka trade garin haddii san laakiin no direction tahay lagama ogola inaad suuqa ku degdegto oo aad trade garayso okay marxaladda u dambeysa waxaynu sheegnay rejections dhaadheer inuu suuqa sameynayo waxay suuqa badi ka dhacdaa marxaladaha qaarkood markasta kama dhacdo marka news ku jiraan iyo marka uu suuqu runtii sameynayo waxa loo yaqaano inta badan la xirayo ama suuqu xirmaysa lacagta xirmaysa inta badan samaysmaan waxaan inta badan caan ku ah lacagaha ay biyadu la socdaan ayaa runtii caan ku ah okay hadda tan kala tago u fiirso waxaan ka eegi doonaa insha Allah marxaladda aynu ka hadlayno ee ka helno okay because OTC inta badan suuqu waa iska hagaagsan yahay ma laha bear market marxaladaha qaar mooyaan hadda kan ku fiirso hadda kan maxay ahayd bear market ay ahayd hadii laga doonayo inaad aragto oo aanad suuqa trade gareyn ama si aanad ku degdegin okay inaad dib u baxnaayo runtii u baahan tahay si aynu soo helno rejections ka dhaadheer ama faraha badan aynu ka hadlayno hadda kan ku fiirso here bear market okay runtii haddaad dib u baxdo waad soo helaysaa ama waad soo xaqiijin karaysaa laakiin waqti ayaynu ku qaadanaysaa inaynu dib u baxno okay good hadda suuqana kale waa lacag xidhan already laakiin waxaan doonayaa calaamadahan ka hadlayo ee ka dhaxarki karayna calaamadahan ka hadlayna waa kuwan hadda lacag sidoo kale u fiirso runtii way tawaqsan tahay ayaynu odhan karnaa maxaa meesha ka dhacaya rejections dhaadheer isweydaar meel aad u qaadin markiis xitaa adoo saxan haddaad gasho maxaa lagu sameynayaa lagu sameeyo late entry ama meel sare laga geliyo oo aad la isqorayso that's why bear market waxa laga doonayaa inaad iska ilaaliso okay qodobkan waxa filayaa inuu idin dhacay oo arday kasta runtii uu isna fahansan yahay waxa ay isticmaalayaan runtii maaha wax qof u khaas ah waa rules adiga waxa laga doonayaa
wixii inaad ruulkii keento haddaad ruulkii ka heshaad laa wixii ruulkii waa haystaa faro u soco haddaad tahay ruulkii waa ka waaya ama ruulkii ma haystana waxaad ku khasban tahay inaad trade-ka aanad ku degdegin oo aad ka joogto ee runtii waajib uga ah okay intaas insha Allah qodobkaan kaga bixi doonaa oo insha Allah kaga bixi doonaa qodobkan haddaba qodob ka soo horjeeda jira oo ah suuqeedin trade gareynayna su'aasha muhiimka suuqa aad trade gareynaysa isna laba ruul baa laga baahan waa inuu good market yahay marka hore direction waa inuu direction leeyahay labada qodob haddaad ka hesho suuqa waa trade gareyn karaysa ama buy trade gareyn ama sell trade gareyn ka danto trade gareyn laakiin waa inuu labada ruul leeyahay maxay uga jeedaan waa inuu marka hore baynu niri horta suuqu yahay good market maxaa noqda good market waxaa noqda suuq leh candles medium ama dhexdhexe suuq sameynaya rejections waa yeelan karaan laakiin waa inay yihiin rejections macna aqli gala waa inay yihiin waa inuu suuqaas waa good market oo candleskiisu waa good market waa qodobka labaad oo good market candleskiisu waa kuwan kana kamida kuwan oo dhan baa kamida kuwan baa kamida yep kuwan jira kamida waxaa dhan runtii waa good market على الدنيا وإن سوقين with direction لا وإن direction ليه هو يسوي تغيير هذا يكون مالكم نغنى يعني ما صح وإن معنى سوق أما up trend هاي أما down trend هاي أما French market يعني أو وصل سمينه وايو وقولنا French market كأي consolidation consolidation هو كان سبربريات French هو سوق good market لكن عن direction الله هنا انتو البالانس فير سميها هذا الكوركشن في صور لك هذا البالانس فير هذا الكوركشن في صور لك هذا عارف يا سيدي علي الفهميه اوكي هذا سوق انا فيرسا عندنا يا سؤال العقد الماركه اما مرحله العقد الماركه كجيرتو كلا الى سؤال هذا كانوا كلا فيرسا هل كانوا كلا سوق انت كجيري كانوا كلا فيرسا داون ترينكين ديرامي داون ترينكين ديرا وكنا نسمي امبالسيف كوركشن ما دام سميني محيو سوق ليه ما كوبات ما كوبات دايركشن ليه ما دام الدايركشن ليه نحب نسمينها جود ماركت نسمينها حلو يقال جود ماركت خلك هذا ومريا ينتمي اوكي هذا هو مريا تاغو هذا هو مريا مير واتنا هذا هو مريا سوقا waxaan hore u sheegnay in yahay kani impulse maadaama meesha ka saaray last lower highs maadaama last lower highs ka saaray suuqani wuxuu chance haystaa ilaa uu ka hoos marayo lowga hadduu hadda lowga jibiyo ama ka hoos maro oo impulse kaasi ka hoos maro suuqaasi down trend isku dhigay hadduu san laakiin ka hoos marin uu halkan ka soo noqdo weli suuq waa trendnimadiisii ayaa weli u xaqiiqsan oo runtii weli ku jira bay leedahay hadduu laakiin ka hoos marana low high bad suuqa ka baaranaysa new low macna inverse piece ama correction piece yar si raaco walkan kala tirado waa correction bay ii noqonaysa oo inverse correction la wuxuu sameeyaa waa down trend kana waa inverse kana waa correction kana waa inverse hadduu halkan jabiyana suuq waa isbedelay oo isna kor ay la soconaysa basically structure-ka muhiimaddu uu runtii leeyahay waa taas okay inta insha Allah waxaan kaga bixi doonaa qaybta hore ee xiisadeena oo aynu kaga hadlayno waxa loo yaqaano Allah musta'aanay structure-ka qaybaha kamida iyo waxyaabaha ardayga looga baahan yahay ee muhiimka ah insha Allah kaga bixi doonaa waxaan u gudbi doonaa hal qodob oo u dambeeya oo aan insha Allah raacin doono oo ah oo casharadeenna recording-ka isla ku jiray oo ah waxa loo yaqaano minor trend iyo major trend minor trend iyo major trend waxa ay ku xiran tahay fahamkiisu marka hore inaad fahamsan tahay structure-ka suuqa haddaan structure-ka suuqa fahamsanin low high kala saari karin ma xusi karaysa ama kuma sii karaysa waxa loo yaqaano minor trend iyo major trend marka arday kasta isku dayo runtii casharadeenaas marka aad ku celiyo inuu si fiican structure-ka u fahmo waayo minor trend iyo major trend muhiimadiisu runtii waxa weeyaan structure-ka suuqa marka aad la socotid ayaad xaqiijin karaysaa minor trend waxa sameeya bullback ayaa minor trend inta badan sameeya oo hadda suuqa isagoo up trend ay halkan ka soo sameynaya okay lanka qaraaro kala qaado bullback sidan ahaa ee halkan intuu istaago noqonay kulliga macna inverse bilaabay ayaa muxuu ku sameynaya waxa uu ku sameyn doonaa inverse correction ayaa laga yaabaa inuu soo ku sameeyo
kadibna uu kuu bilaabo new impulsive caadiga ah ee suuqa ee uptrend hadana bilaabo. This one is a minor trend and this one is a major trendiga ka sameynaya waa kana, laakiin minor trendiga waa kana bulbaageeda ku dhex jira. Okay, sidoo kale mararka qaarkood waxaa sameysmi kara major trendigaagan caadiga ah ee suuqa directionkiisa guud u jeeda inuu soo dhex geli karo waxa loo yaqaan signature-kiisu uu trend noqon karo. Signature-kiisu uu trend si noqon karo in a lower time frame oo uu isku sii hoos jeedi karo. Okay, iswaafajintooda iyo wuxuu insha Allah wakaali doona oo xiisadeen dambe insha Allah si fiican uu fahmi doona. Okay, hadda suuqana kale u fiirso. Hadda suuqana kale muxuu ku jira major trendigiisu waa maxay? Major trendigiisu waa down toos oo meesha saaray last lower high, minorkiisna ay soo balaadhin because major waxa arkaysaa marka soo yareyso, minor kana waxa arkaysaa marka aad soo balaadhiso in la xaqiijin karaysa. Minorkiisna waa kan yar kan hadda uu ku jiro ama isla laftirkiisu waa down trend oo because bilbaagiisi halkaas ayaa ugu soo dhow oo bilbaaga loo qabsan karaya. isaga laftirkiisna waa maxay? Waa down trend. mararka qaarkood marka isku direction loo jeeda haddii kala direction yihiin waad isticmaali karaysaa, laakiin waxay ku xidhan tahay in aad garanayso marxaladda lagu jiro iyo meesha la marayo inaad fahansan tahay ayaa muhiim ah. intaasna insha Allah wixii doonaa qaybta hore waxaan u gudbi doonaa insha Allah qaybta su'aalaha wixii su'aalo ah ee ku saabsan qaybaha aan sharaxay casharada recording kana lagu dhageystay arday kasta insha Allah isku dayo inuu soo weydiiyo insha Allah. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ ما شاء الله ومahadsantahay waa fahmay wax badan baa ka fahmay alxamdulilah. inta cashirka dhageysana waxa iga soo noqday malahan. suuq qaybihii aad u kala qaybiso trendiga ah haday up trend noqoto haday down noqoto iyo rankinka alxamdulilah ma sha Allah waa mahadsantahay ustaad waa fahmay. ma sha Allah. Okay, ardayda kale okay ardayda kale wixii su'aalo ah ay soo weydiiyaan insha Allah because dad aamusto waxay ka dhigan tahay laba mid inaad casharka fahmin iyo inaad fahantay ma kala garan karno runtii dad fahantay waa fahmay haddii aanad fahminna ma fahmin si ay u saxno wixii qalada jira runtii kale عليه السلام. أستاذ aad ma santahay boqolkiiba boqol cashirka market structure-ka aad u fahmay inkastoo xiisadan gadaalka soo galaan ka soo daahay laakiin muddo bilan laga socdo casharadaadi aad baad ma santahay ustaad boqolkiiba boqol. Okay, thank you. Okay, ardayda kale ardayda kale ka soo qaadaya runtii cashirka fahmeen iyo inaysan fahmin ma kala garan karo laakiin muhiimadda runtii waxa weeyaan inaad xiisada inta lagu jiro wixii su'aal ku soo noqday aad weydiiso si aan kaaga jawaabo oo aan runtii u saxno. Okay, intaas insha Allah soo gudbin doonaa casharka recording insha Allah waa inoo doonaa waa soo doonaa inta insha Allah xiisada insha Allah soo arki doonaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.